lafayaan joogaa 10 goor aan ugu mahad celin dawlad gabanaan salaantayna looge mahadayna looge waan u soo duceynaa tuuta min adeliyaasi magaalada Lafey ee ismaamulka Mandera ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi ka socda dowladda ismaamulka Mandera ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Mohamed Cali Maqar oo halkaasi ka daahfuray deeq raashin oo loogu talagalay qoysaska danyarta ee sida daran u saameeyay abaaraha. We are in Lafey town, the headquarters for the Lafey sub-county, just to come and flag off relief food that is meant for the upper and poor. And behind me is the truck that has brought the food delivery for Lafey ward. deeqdani raashinka ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee wasaaraddu ugu talagashay qoysaska nugul, dadka naafada, culummada iyo bulshada tabaalaysan ee ku nool degmooyinka kala duwan ee Mandera. Intii lagu guda jiray munaasabadda daahfurka, wasiirka Mohamed Cali Maqar ayaa bulshada kula dardaarmay in deeqdan lagu qaybiyo si cadaalad iyo hufnaan leh, asagoo xusay in deeqdani ay tahay mid si gaar ah loogu talagalay dadka ugu nugul bulshada si ay ugu baxaan xaaladaha adag ee nolol iyo cunto yari. magaaladan Lafey town wararka kale afarta toos u aaday raashinkooda alungu aaday fino aaday waranqaro aaday sala Mandera ka soo baxay marka midka inta taagan sala kuma jirto alungu kuma jirto fino kuma jirto agarta Soomaa marka waa shan ward Lafey sub county kan waa kii magaaladan oo townkan oo Kabo ay ku jirto, Damasa ku jirta, and Kamorliban ay ku jiraan askale kan waana loogu talagalay dadka liit sabfiina loo fahma nin dab shidan kara iyo nin aan qaraabo ilaahay oo ma tiisto xogaygo maaha meesha xaaladda waxa way dad magaalada ku dhex dhuntaa jiro xaaladooda ay xun tahay marka ilaahay aan barina marka inaan roob ilaahay noo keena xaaladda ma fiicno laakiin ma qoofayno ay dad iimaan lahaanahay marka taasna marka ila dab huurbiyo marka ilaahay waa waqtiina sirmaan yahay marka ilaahay aan barino. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Lafey ee ka faa'iiday mashruuca ayaa muujiyay farxad iyo mahadnaq ay u hayaan dowladda ismaamulka Mandera, ayaga oo sheegeen in gargaarkan uu imaanayo xilli aad loogu baahnaa. رب العالمين إلهي ما هذا إسكاله إلهي قرح دانك سوق وجيه رب أفشنا الله نوكينا دولتي أو وح نوك راشين كنوك أنتي أو نسوق جرجرتي إلهي ما هذا علنينا تذكر راشين كنوكينا نسوق قرشين بوك نوكينا إلهي كان غير هاسيو جنة الفردوس الله كورابيو. أنا جو حالي دها أحمد حسن علي waxaana ku mahadsannahay dowladda annada Kenya boqolkiiba 90 guul inaas ilaahay naga siiyo wadanka annagana ilaahay naga siiyo intii raashinka noo keento dowladda masaacido noo keentana barwaaqo iyo adduun inaas ilaahay noogu barwaaqay dowladda Mandera county inaas ilaahay horumar iyo guul iyo barwaaqan Allah naga siiyo. maanta waxaan helnay raashin 380 beneficiary oo wardkan Lafey loogu talagalay aan maanta helnay. waa ku mahadsan yahay wasiirka raashinkaas gacantayna soo geli oo nagu soo simi waa ku mahadsan yahay. waxaana mahadda weyn aan siinaynaa oo u mahad celinaynaa gabanagayna Maxamed Aadan Khaliif oo raashinkan ku soo deeqay dadweynihiisa Lafey sub county ku soo deeqay wardka aniga in charge aan ka ahay. dhanka kale, wasiirka arrimaha bulshada ayaa kormeeray 10 qoys oo magaalada Lafey kuwaasi oo guryo cusub loogu dhisay barnaamijka taageerada bulshada dowladda ismaamulka Mandera. wasiirka ayaa qoysaska ku wareejiyay shahaadooyin cadeynaya lahaanshaha guryaha. magaalada Lafey buuladan la dhahaa Kom waxaan u imaanay marka hore inaan raashin magaalada ka bixino waana soo marnay raashinka. midda labaad waxaan u imaanay inaan guryaha dowladda ay dhistay 10 guryo magaaladan laga dhiso loogu dhisay dadka saboolka dadkiideedan certificate of ownership sidii guryahan waa fiirinayni
hadda waxaa nala joogay lixaa nala joogtay gabadhood dee waaba xishootay gadaal ay u yar laabatay kuwii kalena waa nala joogaan kuwana waa soo siinay kuwii dambeeyey labadana waa siinaynaa marka guryihiina waa diyaar dee wix hadda ka dambeeyana marka way ku hoyin karaan waraaqana waa haystiin qoysaska hoyga loo dhisay ayaa muujiyeen farxad iyo mahadnaq ballaran ayaga oo bogaadiyeen dadaalka joogtada ee dowladda ismaamulka Mandera ay u muujisay bulshada danyarta. xaliimo ibraahim duqow waxaan nahay boolokoom lafeeyaan joogaa guriga lay dhisay dowladda ii dhistay 10 gooraan ugu mahad celinay dowladda aniga oo la yidhaha Rifaax Axmed dowladda guriga ii dhistay alxamdulillaah waa mahadsan tahay meeshaan joogana waa lafeey wasiiri maxamed cali maqaar oo laantan social services noo soo dhawaaw lafay subcounty ku soo dhawaaw shaqo muhiim oo weyn noo qabatay oo lafay subcounty aska qabatay shay dadka masaakiinta oo guryaha loo dhisay oo maanta waraaqsiisana oo u imaaday waa ku mahadsantahay waxaan abaal weyn aan u sii celinaynaa oo county government oo madax ka yahay madaxweynihiisaas ka yahay his excellency governor maxamed aadan khaliif aan mahad u sii celinaynaa oo arrintaanay taageer oo raashinka iyo masaakiin guryaha noo dhisaa isagana nagu soo kaalmeey aan mahad weyn u celinaynaa waan u soo duceynaynaa 2 term min adeliyaasi insha Allah